xilliyada aad hurdayso waxaa suuragal ah waxyaabaha bannaanka ka dhacaya in riyadaadu ay saameeyaan. Waxaa suuragal ah in muusig bannaanka ka shidan aad moodo qayb riyadaada ka mid ah. Waxaa sidoo kale suuragal ah in jugta iyo dhaqdhaqaaqa bannaanku inay beddesho riyadaada oo jawi cabsi iyo dagaal ay ka dhigto. Tani waxaa la mid ah carafta. Unku waxa uu negative ka dhigaa riyadaada, halka waxyaabaha carfana door muhiim ah oo positive ay ku leeyihiin hurdadaada. Haddii aad u baahan tahay tani inaad tijaabiso hal isbuuc oo dhan, qolka ama goobta aad seexanayso ku dadaal inaad carfiso. Riyooyinkaaga positive inay noqdaan ayay u badan yihiin. Tani sababteeduna waa in xubnaha carfintu ay active yihiin xilliyada qofku uu hurdayo xitaa. Si aan u bilowno muuqaalku, laag saar haddii uu ku cajabgeliyay. Mahadsanid. qofka marka uu hurdayo indhihiisu ay dhaqdhaqaaqayaan waxa uu ku jiraa marxalad REM. qofkaasi ha ku degdegin inaad kiciso, waayo qof ku jira marxalad REM inaad kiciso waa dhaawac aad qofka u geysanayso, sababtoo ah qofkaasi maalintiisa oo dhan madax xanuun, daal iyo rafaad ayuu helayaa. Sidoo kale marxaladan REM qofka waxaa suuragal ah in riyo aad u wanaagsan uu arkayo. qofka hurdayo suuragal ma aha inuu hindhiso. haddii qof jiifo oo hindhisaya aad aragto, qofkaasi waa uu soo jeedaa. sidoo kale biluhu waxa ay saameeyaan nidaamka hurdada. qofku wuxuu si toos ah u hurdi karaa markuu helayo mugdi ku filan, balse bilooyinka khaasatan maalmaha 13aad, 14aad ama 15aadka oo kale, dayaxu waa mid iftiinkiisu aadka u sareeyo marka loo eego maalmaha kale. hurdo la'aantuna aad ay u badan tahay. hurdo la'aanta iyo gaajadu waxaa daran hurdo la'aanta, sababtoo ah soo jeedka waqtiga badan waxa uu keenayaa jahwareerka aragga. qofka haddii in badan uu soo jeedo waxuu maqlayaa codad aan jirin iyo muuqaalo aan jirin ayaa u sawirmayo. tanina waa jahwareerka aragga ee maskaxdu keenayso maadaama qofka hurdo ku filan uusan helin. waagii hore waxaa xabsiyada laga samayn jiray ciqaab hurdeed, taasoo ah in qofka la dhaho bax seexo, xoogaha markay indhihiisu isgalaanna si naxdin leh in loo soo toosiyo, xoogaha kadibna sidii oo kale ayaa seexa la dhihi jiray. tani in badan marka lagu soo celeliyo qofka ma xamili karo, inuu waasho ayuu ku dhowaanayaa. xaqiiqdiina waa nooc ka mid ah istaransi ciqaabeed. qofka marka sidaa lagu sameeyo, su'aalihii la doonayay inuu ka jawaabo ayaa si sahal ah oo run ah qofku uga jawaabi jiray. sida la ogyahay dhammaan xayawaanada naasleyda oo dhan waxay arkaan riyo, balse su'aashu ma waxay arkaan riyooyinka bani'aadamka oo kale ama mid ka duwan? ilaa hadda jawaab caddayn ah oo loo haayo ma aha. sidoo kale shimbiraha laftirkoodu species ka mid ah waxay arkaan riyooyin, balse xamaaratada oo kale suuragal ma aha inaan ku sheegno inay riyoodaan. sidoo kale cayayaanadu iska badaa inay riyoodaane inay hurdaan ama in kale ayaa shaki ku jiro. adigu ma aragtay cayayaan hurdaya?